عرويان هكا بيريننا كنت أجناد السبان فقبل تري مدو قولي ولي واجوغا صوماليا توس اسكتير سدا حتى كينا تاكبر تاغيرا ولي وعلى المركة اللي عليا جادك قبيلكو وفردية جادكو وبختية وحضرية ودلها خلاقة ودلها تعصشدة ودلها قبكة من آدم كيسوع الهيبة ودلها ومبرتها ومطلعها واستعمار شقيها وسلقها ووحاس بينه أكيسن كرينا ما وما أكيسن كرنو ميين كرنو محمد سياد bare sidaan hore u soo sheegnay wuxuu u janjeeray dhanka Talyaaniga haddana xaqiiqdii ma ahayn kabaqaad shisheeyaha u sujuuda oo Soomaalinimada ayuu aad iskula weynaa ma ahayn sida siyaasiyiinta maanta jira ee lagu tilmaami karo duyuusta dalkoodii iyo dadkoodaba u gacan geliyay xabashida iyo carabta iyo waliba wadamada reer galbeedka ee danaha gaarka ka leh kheyraadka dalka Soomaaliya wuxuu ahaa bulshay dabeecad wanaagsan oo aan isla weynayn kuna dadaala inuu qof waliba dhageysto isla markaana uu qanciyo محمد سياد bare 1969 wuxuu Soomaaliya ka xoreeyay kafaniyaal dhiiga umada jiqa iyo gumaysi siloon laakiin ayaan daro waxay dhacday markii uu tagay iyadoo sandalka uusan ka jirin wax nidaam ah qaar qabri madow ayaa lagu xabaalay qaarna xire qaxooti ay ku darxumaysnaayeen sidaas darteed wuxuu ahaa xoreeye gumeeye mar wuxuu ahaa haliyay aragti fog leh todobadii sano ee ugu horeysay maamulkiisa wuxuu howlgeliyay Soomaali oo dhan dalka waa uu dhisay been waa xaraam marna wuxuu ahaa wadani daacad ah oo aanan dalka kheyraadkiisa boobin marnaba ma ahayn Maxamed Siyaad bare shakhsi sameeya sida kuwa maanta siyaasiyiinta isku sheega oo kheyraadka dalka oo dhan ka iibiyay dalal shisheeye isla markaana kabaqaad u ah shisheeyaha marnaba Maxamed Siyaad bare shakhsiyan tuug ma ahayn intuu madaxweynaha ka ahaa dalka hal shilin kama uusan xadin intuusan xukunka qabsan wuxuu caasimadda Muqdisho ku lahaa laba guri ku yeelay xaafadda Waabari ka soo horjeedka xarunta TB-da wuxuu siiyay ururka haweenka gurigiisa labaad waa midka ku yaala xaafadda Hodon wuxuu siiyay xoogsatada waxaana laga dhisay guriga shaqaalaha oo aad maanta garanaysaan